waa maxay compound adjective? A compound adjective is a combination of two or more words joined by a hyphen and used to describe a noun. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada mar kale. Caawa waxaa miiska noo saaran compound adjectives. Compound adjectives waa qeexayaal ama sifeeyeyaal oo laba ama ka badan la isu raacinayo oo hal magac lagu qeexayo ama lagu sifeynayo. Ereygan compound macnayaal badan ayuu leeyahay. Haddii magac ahaan ama noun ahaan loo isticmaalayo as a noun, wuxuu noqonayaa macnihiisa made up, laga sameeyey, or consisting, ka kooban, of two or more things, labo shay ama ka badan wixii ka kooban ayaa compound la yidhaahdaa. Waxa uu macno ahaan usoo dhawaanayaa ereyga mixture ama isku qasid. Ficil ahaan marka loo isticmaalayo compound waxay noqonaysaa sii xumayn ama kasii darid ama sii laalaabid wax markii horeba xumaa. To make, in laga dhigo something shay bad oo xumaa was mid kasii xun ama kasii daray. Tusaale ahaan, her problems, dhibaatooyinkeedii, waa compounded, way kasii dareen ama way sii laablaabneen when she fled, markay ka carartay the accident scene, meeshii uu shilka ka dhacay. What is a compound adjective? Waa maxay compound adjective? A compound adjective is a combination of two or more words joined by a hyphen and used to describe a noun. Waa labo eray ama ka badan oo la israaciyey, xariiq yari isku xidho oo loo isticmaalo in lagu qeexo magac. Examples, tusaalayaal: an all-night party, xaflad habeenka oo dhan soconaysa. A well-built house, guri si wacan loo dhisay. An ice cold water, biyo sida barafka u qabow. World famous player, ciyaaryahan dunida caanka ah. This house is well built, gurigani si wacan ayaa loo dhisay. An all-night party, xaflad habeenka oo dhan soconaysa. An ice cold water, biyo sida barafka u qabow. Ronaldo is a world famous player. Ronaldo waa ciyaaryahan dunida caanka ah. It is very hard to swim in an ice cold water. Aad ayay u adag tahay in lagu dabaasho biyo sida barafka u qabow. Mary had a 7-pound baby in the hospital. Mary waxay ku dhashay isbitaalka cunug 7 pound ah. cashirkii caawa intaas aynoo joogo. Intaynu ku kulmi doono cashirkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.